in maanta halkan aan taagannahay waxay ka turjumaysaa lama arrin kow dalkeennu meeshii uu gaaray inaan iska nadiifin weyna qashinka si aan u noolaanno laakiin maanta inaan u soo jeesanno inaan qashinka iska nadiifinno oo ay xildhibaanadii madaxdii qaranka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka ay nala joogaan waxa ay ka turjumaysaa in Soomaaliya isku duuban ay u soo jeesatay inay dalkeeda dib u dhisato waxaan u mahad celinayaa qof walba oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay arrinkan annagu qaaqin nadiifin haddaanan annagu guryaheena rinjiyeysan haddaanan annagu soo celin bilicdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa inaa ogaataa qof walba Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa haddaan nadiifisid waa qayb ka mid ah qarannimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliyeed haddaad ka qayb qaadatid nadaafadda guud iyo iskaa wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisaysid haddaad dalkaada wax wanaagsan ka sheegtid oo aad weriye tahay waxay ka mid tahay dib u dhiska dalka haddaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaya wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qarannimada iyo dib u dhiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka kaliya oo aan leenahay oo naga wada dhaxeeya waa kan laba jid baa noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walba dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifino qofna kama weyno qarannimada iyo dalkiisa gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa in la sii dardar geliyo shaqada iskaa wax u qabsada oo dib loogu nadiifinayo dalka dib loogu dhisayo dalka gobolada dalka oo dhan waxaan ka codsanayaa in laga bilaabo abaabul sidaan oo kala ah wasaarad walba iyo wasiir walba waxaan ka codsanayaa inuu xaafadda uu degan yahay iyo wasaaradda uu ka shaqeeyo uu ka bilaabo shaqadaas xildhibaan walba iyo senator walba waxaan ka codsanayaa isaguna qaybta uga aadan inuu ka qaato sidaa darteed qashinka meeshan uu yaala maadaama aan arintu qashin ku jiro cudur ku jira dadka degmada wada jir degan gaar ahaan waaxdan xalna degan cudurku waaba kana uu la jooga annaguna waxba nooma jiro cudurku waa intaas waa tan hore ugu baaqnay degma aana isnadiifin dalka way ka hartaa dalka inay ka harto degmada ma rabno annaga maanta hawsheena waxay tahay meeshan qashin dambe inaan lagu daadin qofka qashin lagu daadinayo gudoomiyaha degmadu nala joogo wada jir aan walaalkii Cumar Cabdullaahi iyo dhammaan inta kale oo dhan ee waajibka saaran yahay gudoomiyaha waaxda ha noqdo ku xigeenadiisa ha noqdo dadka reer wada jir ha noqdaan mas'uuliyad waxa ka saaran meesha inaan qof dama qashin laga yeelin labada dhinacba hadda wixii ka dambeeya qashin dhigi doon ninkii qashin dhigana annaga waxaan ula xisaabtamaynaa sharci ula tiigsanina sida shabaabka oo kale xunooma dhaama annaga sidaa darteed waxaan rabaa in dadka ugu baaqo anoo u mahad celinaya saxaafadda iyo saraakiisha ciidamada halkan nala jooga oo qayb weyn ka qaatay in ciidanka Soomaaliyeed aan gaar ahaan ugu baaqay nadaafadda waajib idin ka saaran